iskaashatada beeraleyda ee wadajir waa iskaashato ka dhashan degmada Garadag isla markaan u tafaxaytay sidii ay dhulka wax uga soo saari lahaayeen waxay beer weyn ka yagleeleen waqooyiga degmada Garadag iyagoo dhaam weyn oo ay gacan iyo cagafba ku qodeen ka dhaxdhiseen beerta sidii ay biyaha ugu qabtaan beertan waxay soo go'day laba xilli iyadoo haatan xilligii saddexaadna ay hadda ku jirto waxaase soo wajahay caqabado kala duwan kuwaasoo ay ka mid tahay biyo la'aan isla markaana u dhaamka qalalay waxa kale soo wajahay iyadoo ay waayeen qalab ay ku qodaan ama ku faagaan beerta isla markaana ay noqotay caqabad hortaagan beeraleydan aadan dhiilood waa mid ka mid ah iskaashatada beeraleydan wadajir waxa uu nooga warbixiyay bal sida ay u abuureen beertan iyo haatan caqabadaha hadda hortaagan isagoo sheegay inay beertu soo go'day laba xilli isla markaana hadda ay xilligii saddexaad tahay dalagii hadda ka soo go'ay lahaana uu qalalay biyo la'aan awgeed iyagoo isku dayay inay ceel ka dhaxdhisaan beerta isla markaana haatan marayo 10 mitir waliina aan wax biyo ka soo saarin sidoo kale qaar ka mid ah aqoonyahanka degmada Garadag oo mahad celiyay iskaashatadan wadajir ayaa ka hadlay duruufaha qalabsan ee ku gadaaman iskaashatadan dabadeed waxaanu soo saaray dhaam waanu beeray hadeer waxaanu beeray 3 xilli laba xilli hore wuu go'ay waxba ka go'ay xilligan aynu ku jirona abaar baa naqabsato biyo baa naga go'ay markii biyo naga go'ay waxaanu isku daynay misna inaanu ceel qodno waxaan maraynaa 10 mitir oo dhow rajaanu ka qabnaa in biyo laga helo laakiin ma hayno wax biyo halu rajeen lahayn dhulkii wadaarta dhulkaygu waa kale ceel baalkan ka qodan ceelka halkan ku qodan reer galbeedka waxa laga yaabaa in 5 mitir iyo 10 mitir iyo 6 mitir ay ugu tagaan biyo macaan ay ugu tagaan 8 mitir buu marayaa biyo dhanaan ba hadda wali maraya biyo qalaan baa la marayaa insha Allah waxaan ka rajeynaynaa haday sii wadaan dadkan xoogooday wataan xoogoodii markay ku soo wataana way gaari doonaan insha Allah billaah tariin laakiin waxaan ka codsanaynaa xagga biyaha iyo xagga qalabka iyo xagga tababarka la inaga caawiyo marka beeraha ku yaala degmada Garadag beertan waxa markaa samaystay iskaashato reer Garadaga ujeedooyinka markaa ugu waaweyn ee beeraha markaa noocan ah looga abqaalay ee looga bilaabay degmada Garadag ayaa markaa waxay daaran tahay in dadkii xoolo dhaqatada ahaa guud ahaanba xoolihii ay ka madheen sida la wada ogsoon yahay taasi markaa waxay keentay in dadkii xooluhu ka madheen ee abaaruhu saameeyeen ee dhibaatadu markaa soo haleeshay in markaa marka koobaad loo sameeyo shaqo abuur marka labaad in loo sameeyo in dadka la jiheeyo oo dadka la baro in dhulka wax laga soo bixi karo waa madar sare warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Garadag.